والله waxaan ku suganahay qool baraf waxa la yiraahdaa Daawud Cabdi Maxamuud oo hooyaday ayaa maanta isku dishay meeshan oo soo hartay waa gartay hooyo sababta ay sunta u cabtay Daawud maxay tahay sababta sunta u cabtay waxa aniga markii hooyo fiyo aan ka dhaqaaqay marka magaalada aaday isla markaa magaalada tagan hooyada isbishaalay laakiin sababtu waxay tahay la Korea iyo Djibouti xuquuqa ka dhaxaysay oo Djibouti dhawaa laga haystay sida aad wadaagtiin sidaas aawadeed maadaama uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu booqday la Korea markii uu ku dhawaaqay in uu qabateen laga qaado la Korea ayay hooyada aad iyo aad uga xumaatay ayagoo leh Djibouti oo walaalaheena oo shalay noo hiiliyay ugu abaal dhacayna oo aan ila safarayna saas awgeed bay soo wactay waa gartay waqtiga ay sunta cabaysay yaa la joogay waqtiga ay sunta cabaysay markii laga kala dhaqaaqay oo waxna xoolo aadeen waxna beeray aadeen aniguna tuuladaan aaday markii ay kaligeed noqotay cabtay marka ayagoo nafta ku dabayarta lagu soo gaaray qayl dhanto sidaas lagu soo gaartay magaalada ka soo laabtay gurigaan leeyahay marka in madaxweynaha Soomaaliya uu dalbaday in cunaqabateynta laga qaado Eritrea maalmo dhowr ayaa ka soo wareegtay laakiin waxa kale oo jirto in shalay dawladda Djibouti ay war-saxaafada ay soo saartay ku sheegtay in shacabka iyo dhamaanba dawladdu ay aad uga xun yihiin hadalkii madaxweynaha Soomaaliya marka Daawud hadii aan si kala qaadno ma shacabka iyo dawladda Djibouti ay hooyo la gadooday mise hadalkii horay ee madaxweynaha Soomaaliya ayay ka gadooday ay sideedaba Djibouti yaa la xumeeyay la xaloodhan ay islaan margeeyay ma hadin loo heliyo sida loogu xiranayo sheeg maxay hayto islaan margeeyay madaxweynaha saaray hadii lagu abaal gudo xitaa waxay tiri hadii magaca Soomaaliyeed aan iska bedeli lahaa oo dawlad kale maanta aan noqon lahaa xitaa xaalada Soomaalida ba sheegan maayo ayadoo ay xaaladdan ahayd marka maanta shacabkii Djibouti gadooday markay maqashay qiiranta qaaday sunta wadaagtay saan malaynay marka hadalkan oo ku saabsan in Djibouti iyo shacabka iyo dawladdu ay ka gadoodeen hadalkii madaxweynaha iyo codsigii madaxweynaha ee ahaa in Eritrea cunaqabateynta laga qaado dhamaantood hooyo gormay maqashay hooyo xalay BBC-da ka dhageysatay marka xaloodan waxay Ismaaciil Cumar Gelle iyo Djibouti ku arkaysay maantana dadad baa dhacay marka anagu inaan Djibouti la safrno meeshay ka ahayd madaxweynuhu codkeena oo xambaarsan oo la safsay la Korea sida aan hadalka ka darsan karno ay la tahayba marka aniga laftayda Ismaaciil Cumar Gelle qof lagu abaal dhici karo maaha waa hiil walaal waa dadka Iiraan jooga Hirshabelle ciidamada jooga Hirshabelle loo aragtay waa hiil walaal waa Djiboutian waa walaalaheen waa nimankii shalay anagu aan u helinay maantana ayagu noo heliyay marka in Djibouti lagu abaal dhaco ayay hooyo aad iyo aad digeed u kacay saasawgeed arrinta u samaysay waa gartay hooyo imise caruur ay ka tagtay waxay ka tagtay 6 caruur adigu ma u weyntahay mise waad u yartahay ma aniga afar ay gooyin afar caruurta hooyo ay ka tagtay ma da'yara mise waa ma da'yar ma hay ma da'yar ma hooyo waxay kamid ahayd ururkii haweenka siyaad barre oo albartaan kamid ahaan jirtay marka anagu da'yar mana waxaa noo yar 25 jir waa garto hooyo magaceeda maxaa la yiraahdaa Daawud hooyo waxaa la yiraahdaa Xaliimo Xaliim marka markii uu tagay farmaajo shalay markii aan dooraneynay waxa markuu ahaa aan ku aragnay haddana waa kana hartu tagay ay dhayso aad u muxuu ku riyaaqay balse tana ka dambeysay
marka dadkii ugu dambeeyay oo waqtigii hooyo inta aysan sunta cabin guriga la joogay dadkii kaaga dambeeyay hadii aad waraysato hadaladii ay sheegaysay oo ugu dambeeyay aanu yaro taasisa iga dambeeyay oo adiga sidee jirta oo kale igama dambeeyay